Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada shabakada Suncodes. Casharkan waxaan ku baran doonaa conditionals. Conditionals wax kala maaha waa if statements, ternary operators iyo case. Waana programming logic. Soo hadda luqad kale programming ka timi oo ku fududaanaysa si sahlan u fahantid. Haddii kale ay ku cusub tahay waxayna ku sahlaysaa luqadaha dambe aad baran doontid inaad si fudud oo fiican u fahantid. Waxaana ku sii sahlaysaa true or false statements aynu soo baranay casharkeennii hore. Tusaale ahaan waxaynu naqaanay haddaynu afar way ka weyn tahay 5 inay noo saarso false. Sidoo kale waxaynu naqaanay haddaynu afar way ka yar tahay 5 soo saarso true. Conditionalsku waxay hubiyaan waxaan true ba soo false. Okay, intaan baynu if gelinaynaa marka. Soo waxaan leenahay tusaale if 5 ay afar ay ka weyn tahay 5 waxay soo saartaa okay tusaale ahaan ama 5 way ka afar way ka yar tahay 5. Soo hadda waxa ku soo baxaya week. Sababtoo afar waxa taqaanaa inay 5 ka yar tahay. Laakiin dadka afar hadday ka weyn tahay 5 waxba ku soo bixi maayaan. Markaas ayaa u baahan doontaa else statement. Okay, bal intaan aynu copy garaysano aynu cut bin leenahay waxaan isticmaalaynaa parentheses-ka ayaan isticmaalaynaa. Sababtoo ah waxaad helna yihiin oo kale uma baahna inaad isticmaashid parentheses-ka laakiin haddii kale waxa u baahan tahay inaad isticmaashid. Soo aan ku soo noqono hadda sidaan tiraahayna waa same. Marka hadda waxba ku soo bixi maayaan markaas waxa u baahan tahay else statement inaad isticmaashid oo aad gelisid haddii xaaladdan la waayo wixii ku xigi lahaa. Soo waxaan leenahay not working. Soo not working ay ku soo baxaysaa. Waxay la mid tahay halka tiraahday if true. Waxa sidii true yihiin waxa ku soo baxaysaa working. Haddii ay false yihiinna conditionkaas ay khalad tahayna line labaad ee else ayaa ku soo baxaysaa. So else waxa weeye haddii if tan la waayo wixii kale ku xigay. Hadda tiraahday if not false waa true working ayaa ku soo baxaysaa. Waaye inagoo taa ka faa'iideysanna bal aynu isticmaalno real life example. Koorsooyin baynu haysanaa tusaale marka waxa ku jira is free. Koorskan ma free waa mise maaha true bay noqonaysaa ama false. Tusaale ahaan waxaanu haysanaa marka waxaan leenahay is free baynu halkan gelinaynaa. Haddii koorskaasi free yahay waxaad tiraahdaa watch the course. Haddii kalena waxaad tiraahdaa please register or login. Inaha qofka koorska hadduu free yahay waa la daawan karaa. Hadduusan free ahayna qofka waxa soo baxaysa inta. Soo hadda aynu okay run dhahno watch the course ay soo baxaysa. Laakiin koorska free ma aha tusaale ahaan waa premium oo kale. Soo waxa soo baxaysa please login or register. Sidoo kale waxaynu ku soo dari karnaa condition-kan inaynu sii badino oo koorsku ama waa free ama waa premium. Tusaale waxaynu ku soo dari karnaa kala user let login. User-kan hadda login ma yahay true or false ayaynu iyadana u kala saarnaa. Laakiin halkan waxa ka dhigan kartaa waxa doontid. Tusaale waxa ka dhigan kartaa free waxa doonto ku qori kartaa. Tusaale saas oo kale dhigan kartaa free premium laakiin true or false ka ayaynu isticmaalnaa maadaama concept-iga aad fahantiin. Soo waxaan haddii koorsku free yahay inta soo saar. Haddii else leenahay if waxaan furaynaa qoyskeeni halkan ayaynu xilgelinaa condition-kii labaad. Haddii koorskani is free baynu naqaanay waxaan leenahay is not free. Tusaale aan baynu raacinaynaa labada siyaabo bas aynu hubino aan user-kuna uu login yahay. Yana haddii koorskani uusan free ahayn oo premium yahay koors lacaga qofkiina laakiin diiwaan gashan yahay waxa uu soo saaranaa condition message-kan waxaan leenahay watch the premium course. Koorskan premium-ka ay lacagta daawo. Soo hadda waxa soo baxaysa watch the premium course. Sababtoo ah koorskii hadda waxa weeye not free oo waa lacag qofkiina uu diiwaan gashan yahay. Marka waxa soo baxaysa koorskan lacagta daawo. Laakiin haddii aan koorskii waa free qofkii ama diiwaan gashnaado ama uusan diiwaan gashnaado gasti ahaado watch the course ay soo baxaysa. Okay, condition-ka saddexaad goorma soo baxaysa marka? Waxa soo baxaysa haddii koorskiina uu false yahay oo not free yahay ama premium yahay lacag user-kiina uusan login ahayn oo qofkiina uusan ku jirin page maxaa soo baxaysa marka? Please register or login ay soo baxaysa. So condition-ku wax marka uu yeelay application-kaaga ama software-ka isticmaalaysid inuu mataqaanaa u shaqeeyo si logic ah. Intan waxa la markaa if statements if else statements waa la
sidabaan haddaba qaabka labaad aan isticmaali karna muxuu yahay qaabka labaad aan isticmaali karna waxaa la dhahaa ternary operators baa la dhahaa ternary wax kale maaha waxaan leenahay is free haddii kooraskaasi is free yahay question mark waxaan soo saaranaa inta copy else waxaan soo saaranaa please login or register so wax kale maynu qaban so haddaynu okay dhahno waxaa soo baxaysa please register or login saynu u ogaanay inay tan wada shaqaynayaan tanna commentigan ku qaadanaa marka laba line baa inoo soo baxaya oo isku mid ah tigan ka qaadaya comment ma saaraya intan soo haddaan ran garayno marka statementiga hore intan ayaa ka soo baxaysa statementiga labaad marka isku wax baa inoo soo baxaya haddaynu halkan xataa ka dhigno tusaale ahaan true watch the premium course soo baxaysa marka haddeer weli maynu hubin user waxaynu hubinay haddii coursekan free yahay watch the course soo saar haddii kalena else if is free intan soo saar else intan soo saar markan kale waxaa u baahanaysaa inaad isticmaashid nested ternary operator sida iftan else aan isticmaalay marka halkan aynu ku soo darnaa waxaan leenahay haddii courseku free yahay intan soo saar samaha haddii kale halkan ka soo daranaa else samaha waxaan leenahay is not free is free oo laga horeysiiyey calaamadda exclamation hadduusan coursekana free ahayn aan userkuna uu log yahay question mark halkaas ay gelinaysaa conditionka bacdina waxaan leenahay waxaan soo saarnaa tusaalaan console.log messagekeeni watch the premium course kabacdina elstina halkaan kusii daraynaa console.log so haddaan rangareeyo isku wax baa soo baxaya sababta waa nested ternary operators wax kale ma qaban kii labaad ayaan haddana mar labaad kusii sameeyey ternary operators labaad marka waxaa la nested ternary operators tanoo kale way adag tahay waxaa mar walba kuu fiican inaad isticmaashid if else statements laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad labadaba baratid si hadhow application noocan oo kale u samaysan haddaad aragtid aad u fahantid waaya tan saddexaad aan isticmaali doono waxaa la case iyadoo way ka duwan tahay marka labadan oo kale comment aynu ka dhigaynaa commenti soo waxaan leenahay tusaale switch kabacdi halkan aan gelinaa caseki tusaale ahaan numbers kabacdina waxaan leenahay case numberkaasi uu yahay hal console.log waxaa soo saartaa one kabacdina case labada break ayaa u dhexaysiinaysaa labada case sidaadan iskugu dhex darin haddii kale multiple cases aa isticmaali karta waxaa leedahay case numberkaasi uu 2 yahay tusaale ahaan intaan inoo soo kabagare hubi waxaan leenahay 2 so halkan numberkan ayaynu leenahay let number inuu ahaadaa labo so waxaa soo baxaysa one ayaa soo baxaysa okay halkan aan dhahna 2 sorry sidoo kale haddii numberkan uusan midna ahayn 1 iyo 2 1 haddii yahay 1 baa soo baxaysa laakiin hadduusan 1 iyo 2 midna ahayn uu yahay 3 tusaale ahaan waxaa soo baxaya waxba markaasoo kale waxaa u baahan tahay wax la dhaho default case kabacdi waxaa leedahay console.log run number kale ayaa soo baxay marka qaarkood waa midayn kartaa waxaa samayn kartaa waxaad leedahay case 1 iyo waxaa leedahay case tusaale ahaan 3 kabacdina waxaad samaynaysaa intana soo kordhigaysaan console.logan kabacdi waxaan leenahay 1 or 3 kabacdina halkan waxaan leenahay 1 or 3 so hadda labadan case wax breaka uma dhexaysiinayno haddii case uu 1 yahay or uu 3 yahay labadaas ayuu soo saaraya so waxaa soo qoraya 1 or 3 waa sii habeyn karnaayo waxaan ka saari karnaa tan dhexe aynu ka saari karnaa waxaan leenahay case 1 iyo case uu la mid yahay 3 so haddeer wuxuu soo saarayaa 1 or 3 ayuu soo saaraya laakiin hadduu 4 noqdo wuxuu soo saaraya ama 5 number kale ayuu soo saaraya hadduu noqdo tusaalaan 2na 2 keligeed ayuu soo saaraya marka case saas u shaqaysaa haddaynu ku apply garayno coursekeenii just waxaan leenahay switch is free kabacdina caseka waxaan leenahay case true kabacdina waxaan leenahay console.log waxaa soo saartaa watch the course waxaan leenahay case false coursekani uusan true ahayn default waa isticmaali karnaa laakiin hadhow default wax kale isticmaalna waxaan soo saaraynaa please login or register kabacdina waxaan leenahay break soo haddaynu ran garayno is free idaynu weynaysiinay sorry kan after waynu weynaysiinay so watch the course ayaa soo baxaysa haddaynu ka dhigno false na waxaa soo baxaysa please login or register marka case saddexaad aynu kusoo dari karnaa ah default case haddaysan midna ahayn oo true or false midna ahayn waxaan soo saarnaa tusaale ahaan
cilad baa jirta saas oo kale soo halka hadaynu ka dhigno tusaale ahaan nal hadaynu ka dhigno waxa soo saaray cilad baa jirta ama hadaynu ka dhigno tusaale ahaan undefined marka switch iyo cases kuna saas u shaqeeyaan ina practice garisid baa fiican aad iyo aad ay u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq